السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اللي متلاقي ونحرسته انت حنوسي الله عافية وحمرات كود مراد له خير إله السيء أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ما تحكو بيغان تهي أفري تمانكي بيشي لبيتونات كون أفر بقل أفرت الدواء كو بيغان صوتنكي بيشي شنان لابد يكون لباتني اللحظة وردقدق لسوغار أي شيء in Obelo uu ka qarxay wadanka Republic of Congo East Africa ku yaalo kaas aad xaaladiisa u sii faafay si xawli ah waxaan hadda ku dhimatay dawladda Uganda 15 May dawladda Congo 15 May ee diiwaangelisay in loogu shakisan yahay 28 qof halka 246 ay ku dhinteen. dawladda Congo waxay 15 May ku dhawaaqday dilaaga cusub ee Ebola ilaa haddana waxaa la diiwaangeliyay 28 halka 246 ay ku dhinteen. khubarada ayaa sheegay in faahfaahitaanka cudurkan uu ku socdo xawaare dheeri ah oo ugu badnaa kuwii hore oona cabsi laga qabo in xaaladdu ay ka baxdo haddii aan degdeg ah loo joojinin faafitaankiisa. dagaalada hubeysan ee bariga Congo ayaa adkeeyay in tallaabada Ebola kumanaan qof oo barakacyaal ah ay ku jiro xirada xiriiri ah ay ku jirto nadaafad darro xarumo iyo adeegyo caafimaad oo liita taasoo sababaysa faahfaahitaanka cudurka. waxaa leeyahay xeryaha iyo hubeysan waxaa jira dagaala ka jiro goonka ka socdo oo dawladdii mucaarad ku dhexeeyo marka jir dadka xareeda ku jira waxaa ka jirta uu leeyahay nadaafad darro iyo waxaa ka jirto adeega caafimaadka yar. inkastoo ay nadaafad darrada ay shacabka gaar ahaan qabaan hay-adaha dibadda warar been abuur ah oo weeraro lagu qaaday xarumaha caafimaadka, dhaqaale yari iyo qalab caafimaad oo aan ku filnayn. wuxuu leeyahay dhibka jiro caqabada jirta wuxuu leeyahay weeraro oo been abuur ah oo arqaladan deenayo wacyigelinta. marka la wacyigelinayo waa in ma garanaysaa dee dadka wax loo sheego soo maante. marka wuxuu leeyahay waxaa jira alqaladaas dhaqaale yari iyo qalabka caafimaadka oo aan ku filnayn ayadana waa caqabad weyn kale. WHO ayaa sheegtay inay heshiis ka galaysa saddex meelood meel dhaqaalaha loo baahnaa si looga dagaalamo cudurka. 3 heshiisay la soo gashay meel dhaqaalaha si looga dagaalamo cudurka Ebola ayaa sidoo kale gaaray wadamada deriska sida Uganda halkaas oo la xaqiijiyay kiis cusub taasoo sare u qaadayso khatarta gobolka oo dhan. East Africa waxaa ku jiro Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda iyo Soomaaliya hadda lagu soo daray. waxay jiro arkaynaa dalalka ay ka mid yihiin United States, Canada, Mexico ayaa bilaabay tallaabo taxadar leh oo xiriirka safarka iyo caafimaadka dadweynaha.
waa sidii corona oo kale. Corona markuu bilaabanayay wuxuu kasoo bilowday Yurub, uu kasoo bilowday si loo sii socday halkaan imaaday. Qofaa wada u imaanaya diyaaradda wada markuu soo wada wixii dadku ku neefsanaya taas wixiina waa la wax ma garanaysaa bini aadanka awoodiisa dhaafe ahayd aan la xakameyn karin. xaaladda ayaa si adkeynaysa sababaha noocan cusub ee Ebola ah oo la yiraahdo Bundibugoya ayaa weli loo helin tallaalo daaweyn rasmi ah. wax tallaal looma helin ilaa hadda la raadinaya. xaaladdan way sii cakrintay. marka walaalayaal is jira hay'adaha caafimaadka waxay sheegayaan in weli suurtagal ah in cudurka la xakameeyo haddii loo helo taageero caalami ah, dhaqaale ku filan iyo iskaashi wanaagsan oo lala yeesho bulshada deegaanka. haddaan dhaqaale loo helin iyo iskaashi waxba ma ka jiraan marka cudurkan wuu sii faafaya, meel walba kusoo faafaya. adduunku waxaa weyn global waaye. hadda Congo oo East Africa ku taalo oona dagaalay ka socdaan xaaladeeda loo sahal yahay oo saanku u yahay. Uganda kusoo xigta, Tanzania kusoo xigta, waxaa kusoo xigta Kenya kusoo xigta, waxaa kusoo xigta Soomaaliya kusoo xigta, Ethiopia kusoo xigta, Djibouti kusoo xigta. saas soo wareegaysaa. kili dadka oo Kenyaan kilimo dad waxaa la degan European la degan, American la degan, waxaa la degan Asian la degan, adduunka dhan la degan. marka dadkaas guryahoodii cararayaan, markuu cararayaan way qaadayaan. wax la xakameyn karan ma aha. marka ilaaha umuuraha sahlo waxaa qodobka